بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسن دمانتين بأميل البوهدوني ذاك الجوكتان وحد كسور دواتان ورركي قدام بيت دقالك كسعود القبر كبريق دحي وحنا كميت قطبة برامج كسور قادة دونا دولة ودن كيران والشاعسي اندر ببالله دورته وقاميه بدل لها الله قلنا هريستي آيات الله علي خماني وحكولا برامج كميدا عيدا إلى رضا كعانك أو قرن ويررع ولسكو قادة للك حقوق قمستها إتالك كوتشوغان فلسطين قارهان مقالوين كي قوبت اللباكسداي أيانو سوق قادن دونا خسارة أيا كرنا شيء مركاسي وحكولا برامجka kusoo qaadan doona gudoomiyaha baarlamaanka dawladda wadanka Iran oo wacd ku maray in Iran kaligeed aan burbur doonin laakiin ayuu si raaciyay barnaamijka kusoo qaadan doona hadii Allah ka dhigo muxuu yahay howlgalka gaarka ah ee ciidanka ilaalada kacaanka ay ka fuliyeen gudaha wadanka Urdun isaguna barnaamijka ayaa kusoo qaadan doona hadii Allah ka dhigo waxa kale oo barnaamijka kusoo qaadan doona ciidamada Israa'iiliyiin oo lagu laayay gudaha wadanka ee koonfurta wadanka Lebanon hadaba barnaamijka kusoo qaadan doona iyana ninka ugu sareeyay xisbiga dimuqraadiga dawladda wadanka Mareykanka ayaa si baan ugu digay dagaalka ka socdo gobolka bariga dhexe waxa uu Trump kooxdiisa ku dhaliilay inay bahalayihiin Mareykanka ay dhiiqin lagu ogoliyeen wararkii ugu dambeeyay soo qaadan doona saaxiibadii hadii la ka dhigo aad iyo aad u mahadsantiin soo dhawaada wad mahadsantiin hadii ay tahay markii kugu horeysay fadlan oo aad markaasay nagu soo biirtayna kanaalkeena subscribe si loo wadaag saaxiibadaada muuqaalka aragtidaada ka dhibay aad u mahadsantahay soo dhawaada waxa aan ugu horeyno markii ugu horeysay goordhow duqeymo culus ayaa ka dhacay dhulka Israa'iil ay xoog ku haysato waxaana weeraradaasi kamid ah kuwa si weyn loo la yaabay ciidamada militariga Iran gaar ahaan ciidanka ilaalada kacaanka ayaa weeraro culus ku qaaday magaalooyinka Tel Aviv Qudus iyo Haifa weerarada ugu badan waxay ka dhaceen markaasi magaalada la yiraahdo Tel Aviv maalmihii ugu dambeeyay ciidanka ilaalada kacaanka dawladda wadanka Iran ayaa si xoogan u bartilmaameedsanayay magaalooyinka Qudus iyo sidoo kale magaalada Tel Aviv ilaalada kacaanka waxay sheegeen inay beegsadeen ama ay qaadeen 16 goobood oo ku yaala magaalada Tel Aviv oo kaliya in weerar ay ku qaadeen markaas sidoo uu sheegay raadiyaha ciidanka maamulka gumeystaha Israa'iil waxa sayaab leh 16 goobood oo la weeraray ciidanka Israa'iil iyo warbaahintood waxayna leeyihiin 3 qof ayaa ku dhaawacantay oo kaliya laakiin muuqaallo ay soo bandhigeen warbaahinta oo ay telefishinka Al Jazeera u kamid yahay waxa la arkaya halaag badan oo dhacay iyo xaafado dhan oo dhulka la dhigay sida telefishinka Al Jazeera uu baahinayo waa markii ugu horeysay sida la leeyahay oo 16 goobood mar qura ay beegsato dawladda wadanka Iran halkaasna waxa la weeraraya inta badan inay ahaayeen saldhigyo militariga maamulka gumeystaha ay leeyihiin iyo sidoo kale goobo kale oo xasaasi ah oo mukhaabaraadka maamulku ay ku shaqeynayaan telefishinka Al Jazeera waxa uu baahinayaa dad badan oo markaas ku hoomaya meesha la yiraahdo manaaji ama goobaha gantalada lagaga dhuunto waxaana la leeyahay halkaas u dhigay خسارة culus ayaa ka dhashay maalintii sagaalaad shacabka maamulka gumeystaha Israa'iil ayaa dhulka hoostiisa ku jira guud ahaan bana noloshii ayaa ka maqan saaxada halka dhinaca dawladda wadanka Iran taa cagsigeeda ay ka jirto duqeymaha dawladda wadanka Iran gaar ahaan ciidanka ilaalada kacaanka ay ka geysanayaan dhulka xoog lagu haysto ayaa marba ka dambaysa si kordhaya khasaaraha dhinaca burburka nafeed ka dhashay ayaan la weeraraya inuu yahay mid aad u sareeya maamulka gumeystaha ayaa guud ahaanba warbaahinta dalka marka maamulkaasi ku soo reey una qabateen ka dhana in la tabiyo dagaaladaas iyo sidoo kale خسارها ببرك أي جيسرية دولة ودن كيران قلت هذا إن عيث كيمانيا وحنا موجريا صور لقو قاعد ضيح قعم يديو مقالة تل أبيب الكبرى لأورنجري ومركز يقول أهم بطل كلا دقي خسارة علوس أو أنكسو كبشل هاين أيات دعي صدق أركم دور باهين تو أي ورينيا لكن إسرائيل وادي دين ورباهين تللو ذاقو أما بحث مقالة لقى صعوبة سبب تلو دين واحد هاي وإنه مركز ويرضى سيئهم كوسو لوجا أرجعه يصدق كرتو حافظ بري لو يقير تمشلان يقرح بدنان وحد قحوتي اسكو بدري waxaana la leeyahay duqeymaha ay geysay dawladda wadanka Iran waa kuwa si weyn khasaaro culus ugu geystay dhulka markaas ay gumeysto xoog ku haysto waxa kale oo la warinaya mas'uuliyiinta ugu sarsareysay dawladda wadanka Iran qudda Israa'iil qudooda hadda inay soo wajahayso xaalad aad u dhib badan kumaan kuno Israa'iiliyiin ayaa isbitaalada la dhigay qaarkoodna walwal iyo ruucbi ay ka qaadeen gantalada guuxooda ka dheeray ee dawladda wadanka Iran qaraxyada ay ka sameynayaan magaalooyinka Tel Aviv iyo Qudus ayaa la leeyahay markaas dhaawacyo dhinaca dhimirka ayaa soo gaaray laakiin waa markii ugu horeysay oo dagaalka oo 9 maalmood oo kaliya maraya Israa'iil ay sheegato in ka badan 1700 oo qof oo dhaawaca laakiin dadku waxay leeyihiin iska badaa 1700 xitaa 4000 oo qof ay dhaawac ka badan yahay dhimashadana boqolaal ay kor u dhaaftay laakiin Israa'iil waa diiday in si rasmi ah loo shaaciyo sababta loo diiday la shaaciro waxay tahay sheekada ayaa argagax leh sidaas daraadeed waxa laga baqayaa hadii tirada dhabta ay geeriyoto iyo burburka wadanka soo gaaray la shaaciyo wadankuba inaanay qof ku harin waana sababta loo xakameynayo in la duubo muqaalana laga sameeyo goobaha ay halaageen gantalada dawladda wadanka Iran
dhinaca kale haddii aynu eegnana ciidanka ilaalada kacaanka ayaa iyaguna sidoo kaleeto howlgal cajiib ah oo gaar ah waxay ka fuliyeen mid ka mid ah saldhigyada dowladda wadanka Mareykanka ee ku yaala wadanka Urdun wasada ay sheegeen ciidanka ilaalada kacaanka waxay yiraahdeen saldhigaasi inuu ahaa mid si firfircoon u howlgalayay isla markaana mararka qaar laga soo weerarayay dowladda wadanka Iran iyo shacabka reer Lebanon ee ku sugan koonfurta wadanka Lebanon waxa la leeyahay marka ciidanku waxay leeyihiin weerarkaasi waxa uu ahaa mid guuleystay waxaana saldhigaasi laga dhigay mid howlgab ah duqeymo culus ayaa la duldhacay laakiin ma faahfaahin ciidanka ilaalada kacaanka dowladda wadanka Iran duqeymaha inay ahaayeen diyaarado drones ah iyo sidoo kale in ay ahaayeen kuwa ka markaas lagu qaaday gantalada guuxooda ka dheeraya si kastoo ay ahaato waxaad moodaa Urdun in markaas markii ugu horeysay oo weerar noocan oo kale tahay ciidanka ilaalada kacaanku ay si rasmi u shaacinayaan laakiin dowladda wadanka Urdun iyadoo waxay si rasmi ah ula safatay maamulka gumeystuhu waxay inta badan beegsanaysaa markaas gantalada ku socda dhinaca iyo xoogga gumeysta waase gantalada looga talagalay markaas in la soo rodo Iran dabcan inta badan gantalo casri ah oo aan laba hortagi karin Mareykanka iyo maamulka gumeystuhu bay gacanta ka tagan ayay ku weerar tagaysaa yaa arkay gantaal markuu dusha Tel Aviv yimaado 100 madax iyo hub noqonaya hagaysa Israel ma haysa mar qura in 200 oo gantaal ay ku tuurto ay ku soo radayso hadii ay ku soo rodo maxay hadda wali waxa la leeyahay dhinaca difaaca ayaa ka sii dhamaanaya maamulka gumeystaha marba ka dambaysa dhanka Iran hadii aynu eegnana duqeymo culus ayaa iyaduna maanta lagu qaaday magaalada la yiraahdo ee markaas Dhahran wana magaalada ugu weyn ee wadanka Iran inkastoo hawada magaaladaasi la wiranayo qiiq inuu isqabsaday sababtuna ay tahay in maanta xoogagga gumeystuhu ay duqeeyeen mid ka mid ah goobaha shidaalka lagu keediyo ilaa iyo haddase waxa la wiranaya xaaladda inay degan tahay waxa kale oo ina jirta sharciyo waaweyn oo ku yaala magaalada la yiraahdo Dhahran ee caasimadda wadanka Iran iyaguna inta markaas dab ka kacay waxaana la arkaya wadooyin badan oo gubanaya inkastoo su'aalo la iska weydiinayo sababta wadooyinkaasi ay u guban karaan malaha mashadaalba lagu balbalay dabadeedna dab miyaa lagu taabtay dabcan su'aalo badan ayaa la iska weydiinaya laakiin marka laga hadlayo khasaaraha iyo culayska dagaalku 85% wax ka badan Mareykanka Israel ayuu dul saaran yahay halka Iran dadkeeda ay 20% wax ka yar culayska dagaalku ay dareemeen marka taasina waa taas dhinaca kale haddii aynu eegnana gudoomiyaha baarlamaanka dowladda wadanka Iran ninka la yiraahdo Mohammed Baqari oo goor hadlay ayaa waxa uu sheegay in dowladda wadanka Iran oo kaliya aan dhibaato culus ka soo gaari doonin dagaalkaas waxa uu yiri haddii dagaalku sidan ku sii socdo ayuu yiri ma jiri doonto ayuu yiri wada lagu iibiyo shidaalka sidoo kalena ma jiri doonto ayuu yiri awood lagu soo saaro yacni waxa uu maldaahaya goobaha shidaalka laga soo saaro oo dhan ayaa dhulka lagu dari doonaa khaliijkan waxa uu isku bedeli doonaa meel gaajo looga dhinto waa sidoo hadalka u dhigay waxa kale uu ninkan sheegaya khasaaraha wuxuu yiri qaladaadka Netanyahu waxa uu leeyahay gudoomiyaha baarlamaanka dowladda wadanka Iran wuxuu yiri awood lagu soo saarayo ma jiri doonto ayuu yiri laakiin qaladaadka Netanyahu ma burburinayaan oo kaliya ayuu yiri danaha Mareykanka balse waxay sidoo kale ay waxyeelo culus gaarsinayaan ayuu yiri danaha markaas gobolka iyo guud ahaan dunida ayuu yiri dhinaca kalena waxa uu jeedaa xirnaashaha gacanka Hormuz u xiran yahay gaar ahaan laga mamnuucay maraakiibta shidaalka ee reer galbeedka marka laga reebo kuwa ay leeyihiin saaxiibada dowladda wadanka Iran ayaa iyaguna dhaqaale burbur culus ku noqon kara sida qaar ka mid ah warbaahintu ay waranayaan warkii ku saabsanaa Urdun hadda dib ugu laabanana saldhigga howlgalka gaarka ah laga fuliyay ayaa waxa la yiraahdaa muwaafaq al-salti saldhigaas ayaa la yiraahdaa marka waxa uu ku yaalay sida la leeyahay magaalada la yiraahdo Azraq ee ku taala dalka Jordan waxaana la leeyahay khasaaro culus ayaa ka dhashay Iran waxay wariyeen inaana xaaladani in marar badan ay saldhigaas ay beegsan doonaan sidaas waxa warinaya telefishinka la yiraahdo Al Jazeera dhinaca kale hadii aynu eegnana ra'iisul wasaarihii hore maamulka gumeystaha ee wadanka Ingiriiska Tony Blair ayaa isaguna dowladiisa ku dhaliilay inaanay si wanaagsan ula shaqeyn dowladda wadanka Mareykanka waxa uu ku dhaliilayaa ninka ra'iisul wasaaraha ka ah hadda wadanka Ingiriiska Keir Starmer inuusan Mareykanka taageerin Mareykanka hadda ma cid baa taageeri karta cid walba ayaa isaga cararaysa sidii kansarka oo kale ayaa looga cararaya marka ooshoos halkaas ay maraysa wadamo badan oo isu tag Imaaraadka Carabta iyo Kuwait iyo Bahrain ay kamid yihiin wali duqeymo culus ayaa ku sii socda sida qaar kamid ah warbaahintu ay warinayaan militariga dowladda wadanka Iran ayaa si weyn u kordhiyay sida la leeyahay weerarada ay ku qaadayaan dhulka la haysto iyo guud ahaanba Falastiin al-Muxtalla dhulka loo yaqaano kaabayaasha maamulka gumeystaha Israa'iil laga soo bilaabo magaalada Haifa ilaa iyo Tel Aviv lagu daray Qudus khasaaro culus ayaa gaaray magaalooyin badan ayaa la weeraraya dhulka in markaasi ay mareen
waxaana sidoo kale maamulka gumeystaha Israa'iil ayaa goordhow qirtay 3 askari in looga dilay koonfurta wadanka Lebanon waxaana uu weerinayaa in markaas ay saaranayeen cagaf markaas ku jirtay hawlo burburina koonfurta wadanka Lebanon cagaftaas oo nooceeda ku sheegeen da 9 mid la yiraahdo waxaana ay weerinayaan xogaga reer Lebanon ee Xisbullah hadda in markaas ay nafis ama har iyo harsiba u diiday hooyadii harsigaba ay u diideen maamulka gumeystaha milatarigooda ee markaas jooga koonfurta wadanka Lebanon inkastoo duqeymo culus ay ka soconayaan dhinaca koonfurta wadanka Lebanon magaalada Beirutna si xun loo duqanay waliba duqeyntii ugu horeysay ayaa maanta ka dhacday hotel ku yaala bartamaha magaalada Beirut halkaas oo ay warinayeen xogaga gumeystuhu in ay joogeen saraakiil sare oo ka tirsan ciidanka ilaalada kacaanka gaar ahaan markaas garabka la yiraahdo Fayliq al-Qudus ama ciidanka xoreynta Qudus loo yaqaano ilaa iyo hadda dawladda wadanka Iran si rasmi ah ugama aanay hadal arrinkaasi dhinaca kalena marka waxa la leeyahay dagaalka dhinac walba marka la eego tan kale waa uu sii xumaanaya maxaa yeelay waxay u badan tahay sida la leeyahay dagaalkan dawladda wadanka Iran in si wanaagsan ay ugu guuleysto Mareykanka iyo Israa'iil hadda waxa la leeyahay waxay raadinayaan qaabkii dagaalka lagu soo abjiro lahaa laakiin dhan walba marka laga eego ma muuqato aan eegno marka warbaahinta dawladda wadanka Iran ayaa baahisay muuqaal kooban oo markaas ka soo muuqanayo inay ku tilmaameen geesi qaran waan Ismaaciil Qaani ninka la yiraahdo ninkaas waa ninka ugu sareeya ciidanka ilaalada Qudus waxayna yiraahdeen waxa uu ka soo laabtay biiraadeen meedaanka dagaalka waxaana la leeyahay waxa ay yaani ka wadaan inuu markii hore u maqnaa laakiin hadda ama dhaawac kooban uu qabay sida muuqato marka waxay leeyihiin dagaalka ayuu dib ugu soo laabtay Ismaaciil Qaani waana geesi haleeyay oo ku sii sugnaan doona oo dagaalka ayuu wadi doona ayay leeyihiin waxay u badan tahay ninkan inuu dhaawac ka soo gaaray markaas dagaalkii u dambeeyay ama weerarkii lagu qaaday ama ku shahiiday Ali Khamenei warbaahintu waxay leedahay arintani waxay beenin u tahay beelada Yahuuda iyo sidoo kale maamulka gumeystaha beenta ay ka sheegayeen oo ahaa in ay markaas ay beegsadeen waxayna soo saareen isagoo caafimaad qaba oo lugeynaya oo mas'uuliyiin sare oo ka tirsan dawladda wadanka Iran oo qaarkood ay madax sare yihiin markaas salaamayeen dhinaca kale war goordhow ka soo baxay dadka dooranaya hogaamiyaha ugu sareeya wadanka Iran ee loo yaqaano majlisul khubraa si gaar ah ninka la yiraahdo Sayyid Ahmed Alam al-Huda ayaa waxa uu sheegay in ay doorteen hogaamiyihii ugu sareeyay ee dawladda wadanka Iran lana bedelay Ayatollah Ali Khamenei waxa ay sheegeen inaan hadda la shaacin doonin sababtuna ay ku sheegeen sababta in kasoo aanay shaacin laakiin waxay wariyeen waxa uu yiri ninkan yiri waxa dhameystirmay oo la doortay buu yiri hogaamiyaha ugu sareeya al-Murshid al-A'la al-Jadid laakiin wuxuu yiri hadda ilaa iyo hadda lama fasixin in warbaahinta loo sii daayo waxaana uu yiri Sayyid Ahmed in xaaladda hadda lagu jiro maadaama jawi dagaal ay tahay ninka doorashadiisu ay dhib badan tahay in siyaabo u qarinaya dabcan saxna ma ahan ba hadii ay shaaciyeen laakiin waa hore ay qaar kamid ah muxalliliintu ay tibinayeen ninkaasi in la doortay laakiin ilaa iyo hadda si rasmi ah loo mashaacin waxay u badan tahay wiilka uu dhalay Ayatollah Ali Khamenei ee la yiraahdo Mujtama Ali Hussein Khamenei waa nin adagsada la leeyahay ciidanka ilaalada kacaankana markaas xiriir wanaagsan la leh isla markaana darajada aabihiisa gaarsiisan laakiin marka la dooranayo murshidka ugu sareeya dawladda wadanka Iran meesha qabyaalad laga fiirinayo shuruudooyin adag oo dhib badan ayay leedahay waxayna ku tusaysaa sida dawladda wadanka Iran ay dawlad adag u tahay iyadoo waxa u dagaalahay ku soconayaan oo Mareykanka Israa'iil dunida nafta u keenay ay ku socdaan ayaad moodaysaa haddana dhinaca kale doorashadooda sidoo caadiga ah inay u wataan waa laga qoostay beeralayahay waana ku hungoobeen Mareykanka maamulka gumeystuhu in ay ridaan dawladda wadanka Iran ama hata ugu yaraantii ay khalkhal geliyaan maamulka dawladda wadanka Iran dhinaca kale xogaga maamulka gumeystuhu waxay leeyihiin sida la waranayo ilaa iyo 4 qof ayaa ku dhimatay 5 kalena waa ay ku dhaawacmeen weerar markii ugu horeysay bartamaha magaalada Beirut lagu qaaday halkaas oo ay warinayso maamulka gumeystaha warbaahintood inay joogeen mas'uuliyiin sarsare oo ka tirsan xogaga reer Lebanon ee Xisbullah waa hagaag warar kale wixii ku soo kordhay waan isla arki doon hadii alla ka dhigo idinkuna aad baad u mahadsantihiin hadii ay tahay fadlan markii kugu horeysay kanaalka subscribe si la wadaag saaxiibada muuqaalka aragtidaada ka dhiibo hadii ay jiraan warar degdeg ah oo soo kordhay bal mar labaad ayaanu dib ugu laabanaynaa warbaahinta Al Jazeera bal hadii wax ku soo kordheen iyo hadii kale aynu eeganaa laakiin waxaad moodaysaa daawada marka laga hadlayo gobolka bariga dhex dagaalada ka soconaya marba ka dambeys aad iyo aad ay isu soo taray waxa war degdeg oo hada telefishinka Al Jazeera saaran wuxuu leeyahay mas'uul sare oo mas'uul amni oo Iiraani ah ayaa u sheegay in markaasay ay Washington iyo xogaga gumeystuhu ay doonayaan inay soo galiyaan gudaha wadanka Iiraan xogag irhaabiyiin ama argagixiso ah kuwaas oo asalkooda Kurdi yahay waxaana sawiradoodu ay ka soo muuqdeen baraha bulshada hase ahaatee waxa uu sheegayaa dawladda wadanka Iiraan waxaas inay u diyaarsan tahay mas'uulkan amni ee reer Iiraan oo magaciisa qariyay sida warka degdeg ah hada telefishinka Al Jazeera ku qorayo inay gacanta ku hayaan buu yiri
malafka kuwa kurdida ah ee sawiradoodu ay ka soo muuqdeen warbaahinta waxaana uu sheegay fashil inay ku dhammaan doonaan Iiraan in la qaybiya inaanay marna ku guuleysan doonin Mareykanka maamulka gumaysa kurdida ayaa noqday caloosh u shaqaystayaasha mar walba loo adeegsado burburka wadamada Suuriya Ciraaq iyo sidoo kale wadanka Turkiga garan maayo waxa mar walba Mareykanka reer galbeedka ay ugu shaqaysanayaan dabcan kuwii xitaa la oran jiray SDF dawladda wadanka Suuriya hadda sid baan ula dagaalamayso waxa soo saaray dawladda wadanka Mareykanka markay dantooda ka gaareen taaqad ayay ka tuureen waxa kale degdeg oo hadda isaguna saar isla telefishinka Al Jazeera wasiirka arrimaha dibadda jamhuuriyadda islaamiga ah Iiraan oo u waramay isaguna marka BBC-da ayaa waxa uu sheegay ma jir ayuu yiri nin doonaya dagaalka inuu sii socdo laakiin waxa uu yiri Netanyahu iyo Washington waxay u qumeen buu yiri ama ay u qalab qaateen buu yiri dagaal ay adag tahay markaas in la hagaajiyo dagaal ay adag tahay inay guul ka gaaraan waxa uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda dawladda wadanka Iiraan inagu waan isdifaacayna ayuu yiri kaliya waxaan u taaganahay in nafteena aan difaacano dagaalka oo sii socdo waxdana inuu gama jirto ayuu yiri laakiin waxa uu sheegay in Mareykanka maamulka gumaysto iyaguna aan badan ka dhima doonin weerarkii lagu qaaday wadanka Iiraan muuqaal hadda uu baahinayo telefishinka Al Jazeera waxa ka muuqanaya burbur weyn oo markaas uu sababay gantaal ku soo dhacay bartamaha magaalada Tel Aviv la yiraahdo ee caasimada ganacsiga dhulka gumaysto ay xoog ku haysaa khasaare baahsan iyo dhimasho dhaawac aad u tiro badan ayaana la weeraraya muuqaalkan ayaa ka muuqanaysa in burbur xoog leh uu dhaliyay gantaalkaasi sida muuqaalkan telefishinka Al Jazeera uu ku baahinayo dhinaca kalena hadii aynu eegno wasiirka markaas korontada ee dawladda wadanka Mareykanka ama wasiirka petroolka hada doonaa tiraadide waxa uu sheegay in petroolku uu marka ka dambeeyo uu cirka isku sii shareerayo waxaana uu sheegay in markaas markibta shidaalka ee dawladda wadanka Mareykanka ee soo maraya gacanka Carbeed ama bad Carbeed ay hadda halis wajahayaan waxa uu sheegay in Mareykanka aad uu dhibaato uga qabo mar walba waxa uu sheegay in la beegsanayo markaas markibta shidaalka u soo wada dawladda wadanka Mareykanka iyo kuwa xitaa dawladda wadanka Mareykanka ay leedahay ama shirkadaha Mareykanka ay leeyihiin ee markaas dhinaca shidaalka u soo wada waxa war degdeg oo kale ayaa ka soo kordhay sawir kale ayaa ka soo kordhay oo telefishinka Al Jazeera uu baahinayo gantaalkii dhawaanta ama dhowr daqiiqo ka hor ku dhacay bartamaha magaalada Tel Aviv waxa la arkayaa ajiib gaadiid yaalay wadada oo inta gantaalkaas culeyskiisu badnaa daf uu siiyay guryo kor laga saaray waxaan soo xasuustay qaraxyadii ka dhici jiray magaalada Muqdisho Yahuuda waxa la arkayaa marka gaadiid tiro badan oo inta uu qaaday markaas gantaalkan culeyskiisu guryo dusha laga saaray wadooyin aad u tiro badan oo iyaguna burbur ku jira meel qurux daqiiqad ka hor laakiin hadda isku bedeshay magaalada Khan Yunis burbur culus ayuu geystay gantaalkan sida la leeyahay inkastoo muuqaaladan si kooban ay loo arkay iyo sawiradan haddana waxa la leeyahay kuwan oo kale guri laguma arag lama moodina la leeyahay gantaalkaasi sidan inuu culus yahay laakiin waa la diiday guud ahaan warbaahinta in faahfaahin dheeraad laga soo dhinaca kale ninka ugu sareeya dimuqraadiga xisbiga dimuqraadiga wadanka Mareykanka ninka la yiraahdo Hakim ninka la yiraahdo Jeffries ayaa waxa uu leeyahay suurtagal ma aha inaan ciidamadana ku taageerno dagaal wadan kale ka socdo oo aan dhamaad lahaynna diyaar uma nihin ayuu yiri ma jirto ayuu yiri wax taageero ah oo la siin karo ciidamadeena maxaa yeelay buu yiri dagaalka ay kaga jiraan gobolka bariga dhexe ma garanayo ayuu yiri wax dan ah oo ugu jira dawladda wadanka Mareykanka waxayna gelinayaan buu yiri Trump iyo kooxdiisa dagaal aan dhamaad lahayn Mareykanka taasi dani uguma jirto umana qumayno waan in si degdeg looga hortaga ayuu yiri go'aanada gurracan ee Donald Trump uu ku qaadanayo mana doonayna ayuu leeyahay ninkani inaan Israa'iil daraadeed cadaab u galno waa la isku arkay shakad aad u mahadsantiin daawadayaal ونادي محد علني دب انتان كل مدون نبتقل